السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا وعند داوديال كسر دوادا برنامجك مدرسة وهذا أيو كله تدواد والبا تلفزيون كسوم نيوز تي في كدا وطن برنامجك وحنكو إقدرنا جد سعود كأرمها الحريرة دورشوينك وحيقلق يبقى قدوميها حزب جمانديق أو قيبك حزبية السياسات كجرا صوماليا islamarkaana kamid ah murashaxiinta u tartamaysa jagada madaxtinimada Soomaaliya doorashada la filayo in sanadkan ay ka qabsanto gudaha dalka Soomaaliya waa Dr. Mahad Ahmed Diiriye marka hore soo dhaw murashax marka xigta su'aasha ugu horeysay aan rabo inaan ku weydiiyo waxa waaye doorasho nooce ah ayaa doonaysaan in Soomaaliya ay ka qabsanto bismillaahir rahmaanir rahiim marka uu horeysay shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa salaamaya meel kasta ay ku nool yihiin waxa kale oo salaamaya idaacadiina iyo dhammaan intiina ma aragtay idaacada joogto doorashada haddaan ka hadlo aan rabno doorasho waxaan rabnaa waqtigeeda ku dhici karto oo ah doorasho la isla ogol yahay oo shacabka Soomaaliyeed oo dhan ay u jeedaan inay sax tahay taas waa doorashada aan rabno oo waqtigeedana ku dhacdo doorashadaas aan rabnaa waxayna ku dhici kartaa in ma aragtay waxyaabo badan oo wadanka ka jiro labada dhinac isku haystaan mucaaradka iyo dawladda labadaba isku haystaan labadaba in waxyaabahaas ay wax badan ka bedelaan sida hadda ay dhaqankooda ku sameynayaan oo kale marka waa gartay maxay tahay caqabadaha ku horgudban in doorasho ay qabsanto heshiisyo ayaa jiray oo u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada caqabadaha markaad eegto dhan walba aad ka eegto maxay kula muuqdaan caqabadaha way badan yihiin labada dhinac marka hore way ka socdeen inkastoo hadda ay muuqato in mucaaradka ay xoogoo soo tanaazuleen hadda ka horna arrintaas waa ka hadlay caqabadaha jiro in loo baahan yahay in hal magaalo laga dhigo doorashada maadaama aan laba magaalo aan laga dhigi karin sababtana waxaa ka mid ah ishaysadka la isku haysto gobolka Gedo waxaa kaloo ka mid ah mataqaanaa Hirshabelle oo kale gobolka Gedo kale waa la isku haystaa arrimahaas waxay sababayaan inaysan doorashada laba gobol aysan ka qabsoomi karin arrintaas dhowr bilood ka hor aan soo jeediyay haddana arrintii taagan oo ma aragtay dadkii hadda ay fahmeen mucaaradkii waana soo dhaweynayna hadda ma aragtay arrintaas in hal gobol laga dhigo taasina ku suurtagal karta doorasho waa gartay yaa looga baahan yahay tanaazul labada dhinac waa looga baahan yahay labada dhinac waxa waaye tanaazul looga baahan yahay hadda tan ka soo qaado gobolka Gedo kale dawladda waxay taagan tahay waxay sameynaysaa xadgudubyo xaq sharciya waxay magacaawday maamul gudoomiyaha degmada magacaawday ama ka shaqeynaya gobolka Gedo taas waa sharci daro waliba waxa la shaqeynaya ciidanka Soomaaliyeed la shaqeynaya ay isdhex joogan mana suurtagelayso ciidanka Soomaaliyeed inay sharci daro la shaqeeyaan waxa meeshaas xaq u leh inuu soo doorto gudoomiyaasha degmada iyo dadka meesha ka shaqeynaya waa inay hoos tagaan Jubbaland Axmedoowe iyo dawladdiisa hoos tagaan taas dawladda way ku qaldan tahay Axmedoowe iyo dhinacan kale mucaaradkana waxay ku qaldan yihiin in ciidanka Soomaaliyeed ee dhan magaalo Hiwel laga saaro magaaladan laga bixiyo taas ayaga shaqadooda ma aha dawladda shaqo ku leh dawladda meesha geyso waa in la arkaa inkastoo ay qaldan tahay amniga laga rabo inay sugaan ee hadda ay muhiim tahay inay ka sugaan Shabeellaha hoose Shabeellaha dhexe magaalada Muqdisho meelo kale oo ka muhiimsan oo badan oo hadda wadanka oo dhibaato ka jirto magaalada hadda xamar aan joogno dhagax ku go'an yihiin dhibaatooyin badan ka dhacaan meelahaas ciidamada kow in laga bilaabo wax loogu qabto shacabka loo baahan yahay Gedo in diyaarad lagu qaado laga dejiyo loo baahno waxa loo baahan ciidamada inay dhulka mari karaan meel kasta ay u baahan yihiin dhulka u mari karaan nabad ku mari karaan waxna ka qaban karaan oo shacabka Soomaaliyeed amni u soo celin karaan marka labada dhinacba waxyaabo ku qaldan yihiin waxyaabahaas ka mid ah waxyaabo badan oo ma aragtay labada dhinac iska sameynayaan oo qodobo iska soo saaranayaan oo dan ugu jirin shacabka Soomaaliyeed iyo wadankeena laakiin heshiiskii lagu gaaray Muqdisho arrimaha gobolka Gedo iyadoo ay taagan yihiin ayaa heshiisna kala saxiixday dawladda federaalkana waxa ay tilmaamaysaa in heshiisyadii ay ka dhaqan gali lahaayeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada waa heshiiskii lagu heshiiyay ee la kala saxiixday ee doorashooyinka ku saabsanaa arrintaas ma ku muuqataa arrintaas sababaysa waxaa ka mid ah dawladda laftirkeeda waxay sameysay magaaladii waxay ka gacantii maamulkii waxay ka bixisay Jubbaland ay ka hoos bixisay ayadaa maamulkii la wareegtay ayadaa si toos ah ayadaa u maamuleyso wadanka federaal sharci la qaatay way ku xadgudubtay maadaama ay ku xadgudubtay
sababtaasaa keenaysa in maaragtay laga dhigo doorashada hal magaalo aan u codsano oo ay muhiim tahay in hal magaalo laga dhigo, sababtaasaa keenaysa. waa gartay marka laga hadlayo arrimaha doorashooyinka murashaxiinta u taagan madaxtinimada Soomaaliya gaar ahaan waxa ay dhowr jeer ku celceliyeen in arrimaha doorashooyinka iyo geedi socodkooda ay diidan yihiin mar haddii madaxdii maamul goboleedyada iyo dowladii federaalka iyo gobolkii Banaadir heshiis ay kala saxiixdeen murashaxiintiina halkeed ka soo galeyseen heshiisyada? annaga waxaan ka soo galeynaa waxyaabaha qaar ee qaldan u jeedna isku hayaan waa inaan saxnaa oo labada dhinacba saxnaa. waxaan diyaar u nahay labada dhinacba waxyaabaha ay ku qaldan inaan u kala saxno u kala sheegno, sida hadda ma aragtay 2 bilood 3 bilood ka hor aan ka dhawaajiyay inaysan suurtagal ahayn hal magaalo in lagu dhigo laba magaalo in doorasho lagu dhigo maadaama ay labadii dhinacba ay ku xadgudbayaan sharcigii iyo kala dambeyntii iyo in wadanka in doorasho ka dhacday ay dib u dhigayaan. marka arrimahaas soo galeyna anaga waxaan ka soo galeynaa inaan doorashadiina si nadiif ah ku helno oo ma aragtay cadaalad ku jirto. arrimahaas anaga sababaysa inaan bush gareeno oo wixii qaldan aan u sheegno waxaana ku qaldantiin aanaan arrimaha taagan ee dadka isweydiinayaan waxa qayb ka ah murashaxiinta u tartamaya jagada madaxtinimada ee dhowr marba qoraallo kala duwan soo saaray maxay ku qancayaan? qoraalada ay soo saareen intooda badan wax muhiim ma ahan, qodobo badan ee meelaha iskaga qorqorayeen oo aan suurtagal ahayn oo wadankan uusan u baahneen. laakiin hadda tan ugu dambeysay hal qodob ka muhiima oo ay dhaheen hal magaalo maadaama dadkii ay ma aragtay maamul goboleedyadii iyo dowladii ay kala tageen oo ay ma aragtay laba dhinac kala taagan yihiin, waxa kaliya isku soo dhaweyn kara waxay tahay in hal magaalo doorashada laga dhigo guddigana qayb ka mid ah laga bedelo. arrintaas aad u soo dhaweynaynaa, dowladda inay nala qaadataa fiican. waxyaabo kale oo harsan oo badanaa jirta oo weli doorashada u sababa, waxyaabahaas waa la dhameyn karaa. aniga shakhsiyan waxaan diyaar u ah inaan arrintaas la dhameeyo oo labada dhinac isku soo jiido ama aan idaacadda la wadaago insha Allah mar dhow 2 maalin kadib insha Allah haddii ay suurtagal weyso. waa gartay waxaad tilmaantay in loo baahan yahay in dhinacyada kala duwan tanaasul ay muujiyaan lagama maarmaana ay tahay in xal doorashada laga gaaro. yay tahay tallaabooyinkaas inay qaado? doorashada waxay saameynayaan 3 dhinac saameynay. dhinac waa dhinaca dowladda oo la rabo in ma aragtay doorashadii inta badan ay ku xiran tahay. dhinac labaad waa maamul goboleedyada. dhinaca saddexaad waa dadkii tartamaya oo rabo waxay ku qancaan inay arkaan. marka saddexdaas dhinac ay saameynay inkastoo anaga aan ma aragtay wixii qaldan leh aan u taagnaa inaan saxano. marka doorashada waa dowladda waxyaabaha ay ku qaldantaa waa inay saxdaa. mucaaradkan oo qaar ka mid ah ayagana waxyaabo badan oo aan suurtagal inay qoranayaan iyo dowladaha ku meel gaarka ee maamul goboleedyada qaar ay sameynayaan arrimaha qaar ay sameynayaan inay ka tanaasulaan waaye aysan shuruud ku xirin doorashada, aysan shuruud gelinin, aysan dhihin meel hebel ha laga baxo magaalo hebel ciidamada ha laga saaro. madaxweyne kasta oo imaada system wax u maamulaa. aniga haddaan imaado waxaa laga yaabaa inaanan dan ka lahayn inaan ciidamada hadda waqtigan la joogo inaan gadageeyo oo aan u baahanahay ciidamada inaan u isticmaalo magaalada Muqdisho iyo Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe. sidaas aan u socdaan aan rajeynaa ilaa idinkiis madaxweyne kastan xaq u leeyahay ciidamadiisa iyo systemka u maamulanay inay asi gacantiisa ku jirto. marka labada dhinac waa inay labada dhinac ay saxaan. dowladdan waa inay saxdaa oo gobolka dadka u magacaado kale waa inay meesha ka saartaa u ogolaataa Jubbaland inay dad keensato ayada matalo. murashaxiintiina qaarkood waxaa lagu eedeynayay in hadallo u muuqday handadaad oo ah 9 loo noqonayaa iyo haddii doorashada waqtigeeda ay ku dhici weyso qalalaase ayuu dalka galayaa. ereyadaas sidee kula muuqdaan? arrinta horta ah in doorashada waqtigeeda ku dhici weyso waa wax laga fiican yahay. doorashada waa wax ma aragtay kana dib dhici karta kana soo hormari karto in la dadaalno u baahan, laakiin si zaa'ida ma aragtay caqli gal ahayn inay u daadal uma baahno. waxyaabo yar yar oo ay u daahi kartaa laakiin in la dhaho dagaal ma aragtay loo laabanayo waxaas dad mas'uuliyiin hadday jiraan waxaas ku hadleen way ku qaldan yihiin. laakiin doorashada waxay sababi kartaa mararka qaar dagaal iyo qallaaso sababi kartaa sidaan aragnay meelo badan oo adduunka jiro. hadda waxaa ka mid ah hadda la isku haystaa Mareykanka in shacabkii ay u daateen ma aragtay madaxweyne aqalka cad iyo meeshii wax laga maamulay meelo ka mid ah. waxyaabaha badan ee doorashada keeni karta oo hadda la filan karin. marka taas waa ka digeynaa. laakiin hadallada qaar in dadka oo ma aragtay mas'uuliyiinta ay ku hadlaan oo kicinta ma fiican. waa gartay
su-aal baa la isweydiinayaa oo ah gudoomiyaha xisbiga maandeeq Dr. Mahad Axmed Diiriye sidoo ugu dhiiraday xilligan in uu isu soo taago jagada madaxtinimada Soomaaliya oo murashaxiinta qayb uu ka noqdo iyadoo la ogsoon yahay dhaqaalaha ku baxayo doorashooyinka Soomaaliya. su-aasha saddex ka korna kaaga jawaabay mar labaadna kaaga jawaaba doorashada waxaan diyaar u ahay inaan galo si ay u galayaan dadkan oo kale anoo ma aragtay wato dhaqaalahayga aniga aan leeyahay aan soo shaqaystay oo xaqayga oo dhididkayga ah oo qof Soomaaliya shakhsi ama dawlad ama ganacsato ama shakhsi Soomaaliya maanta xataa aan dhehaynin maanta wax igu taakule ama gacan qaba aan dhehaynin aan rabo inaan xaqayga iyo xalaashayda meesha ku tago dadka shacabka Soomaaliyeed aan wax u qabto wadankan aan dhibaato badan 30 sano soo martay ka badan inaan dhibaatooyinkaas wadankayga wax kala qabto maadaama wadankan ma aragto wadankayga uu yahay xaq gooniyan aan ku leeyahay wadankayga uu leeyahay ana wadankayga badbaadiyo oo nafteeda iyo maalkayga u horo waa wax ma aragtay aan ka keenay waalidiintayga ka keenay waalidiintayda wadankan naftooda u horay dhiigooda u horay ana maalkayga iyo nafteyda labadaba inaan horaan diyaar u ahay marka arintaas ay ugu sababayso waa gartay haddii arrimahan ay halka aan kaga gudubno dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay xiriirka u jirtay Kenya arintaas sidoo aragtaa arintaas saddex meel inaan u kala qaadan rabaa horta shacabka Kenya in aan sheego shacabka Soomaaliyeed aan u sheego inay yihiin shacab fiican dadka Soomaaliyeed si fiican loo dhaqmo xushmeeyo oo ma aragtay weligoodna aan ku xadgudbin وين يسجعلين ذاتك الصوماليات كنا الكينيا الشعب الصومالي مرة أركان الشعب كينيا أركان ويسجعلين ذات آت سكو كلسون أسجعل واي شعب وقفي عنا أفريقيا كمديين أم وقفي عنا ديكرا أفريقيا شعب بدأ أفريقيا ودمنا كجيرو صابته وحارك نيك الشعب كينيا إنه ما أردت كابت بادينا حتى مرة قار وحياه ما أردت عسكري كينيا إنه وحقوق سما إنه الربع إنه كابت بادينا كلية هاي عسكري أساس عضو ama waxyaabo badan oo dib ku soo socdo ka badbaadinaya shacabka Kenya ku arkay marka shacabkaas shacab fiican waay aadan insha Allah wada shacab isku jecel yihiin labada dawladood haddaan dhinacood u leexdo dawladda Kenya waa jirtaa inay xadgudubyo ku sameysay dawladda Soomaaliya ama badeeda ha noqoto ama xadgudubyo kale ay ku sameyn jirtay laakiin waxaas wax hadda cusub oo anaga nagu cusub ma waa wax waqti badan soo socday madaxweynaha hadda joogay intuu joogay intii ka horeysay waa waxa si horeeyay ayadoo arrimahaas jiro wuxuu joogay wadanka Kenya oo si fiican oo loo soo dhaweynayo oo la dhaqmay marka maadaama arrimahaas ay jireen waagaas wuxuu dhihi jiray walaalaheen waaye haddana waxa waaye meel aan loo baahnayn uu geeyay marka waxa arintaas ka muuqata inuu madaxweynaha oo ka dhiganayo campaign siyaasadeed ama doorashada inuu ku galo inuu rabo sababtoo ah xuduudan soo xiraa oo xuduudda balad xawa kaliya ma way weyn tahay xuduudaha dhan inuu noo soo xiro waa rabnaa marka xuduudda hala soo xirtay ciidamada Kenya Kismaayo bay joogaanba maadaama Kismaayo gudihii joogaan xuduuddii balad xawa kaliya ka xiranaa waa wax aan suurtagaleynin arintaas madaxweynaha waxa waaye siyaasadda ka gashay shacabka Soomaaliyeedna waxa laga yaabaa inay ku dhibtoodaan waxyaabahaas oo kale looma baahna ma taqaana in ma aragtay saacada xiriir uu jaro maadaama doorasho wadankiina hadda uu galaayo oo waqtigiisa uu dhamaaday inuu arrimahaas wax ka raadiyo looma baahno waa inuu xag maslaxa ku raadiyaa xaggan oo dacwada oo badda kiiska oo meesha yaalan uu xoojiyaa si baddeena aan gacanta ugu soo dhigno dhinacyadaas inuu mar waa loo baahan laakiin in ma aragtay shacabkii uu kala gooyo aad ugu xunna waa gartay arinta kale la xiriirta arrimaha Soomaaliya waxa qayb ka ah su'aalahan ka baxsan Hirshabelle iyo jabhadaha ka abuurmay arinta Hirshabelle haddaan ka hadlo arintaas si toos ah waxay u hoostagay oo waxaas oo dhan ma aragtay qaladaadkaas geystay oo qaladaad meesha ka dhacay oo dadkii aan la heshiisiinin dadkii qaabkay wax ku qaybsan jireen si ka bedelan loo keenay waxa ka mas'uula madaxweynaha hadda talada hayo iyo shakhsiyaad beeshaas oo hadda oo beledweyne degan oo la shaqeynaya madaxweynaha arintaas ma aragtay ayaa ka mas'uula ayaga hoostagay waxayna danta u wataan arrimahaas ay u sameynayaan dadka u kala geynayaan shacabka ay u kala fogeynayaan waxa waaye inay ma aragtay ra'iisul baarlamaan ka dhigaan in meesha u dhashay magaaladaas ka soo jeedo
si uu isku soo sharaxo ra'iisul baarlamaan annagana aan arrintaas maaragtay aan ka madax banaano in aan madaxweyne isku soo sharaxno arrintaas uu ka damacsan yahay madaxweynaha sababtaas uu dad shacab isjecel u kala geynaa anaga ma taageersanin shacabka reer beledweyne aan la jirna aan taageersanahay xaqooda inay difaacdaan aan diyaar u nahay aan leenahay maaragtay u taagnaada xaqiin waa gartay marka laga hadlayo arrimaha gobolka Hiiraan waxaa la tilmaamay in doorasho ay ka qabsoontay magaalada Jowhar madaxweyne lagu doortay madaxweynihii hore ee Hirshabelle madaxweynaha cusub Muqdisho ku soo dhaweeyay dhiiladan iyo arrimahan aad ka hadlayso halkay ka muuqdaan waxyaabaha aan ku sheegay waxa waaye ay ka mid tahay in maar dad oo beeshaas u dhashay oo kursigaas markii hore madaxweynaha nimada haystay maaragtay dawladda la shaqeynaya ee ka wintiina hadda sida sheegaysa madaxweynaha oo arrintaas soo dhaweeyay dadkiisana aysan weli heshiis qaadanin waxay ku qancaan aysan qaadanin sababahaas waa sababaha uu madaxweynahan hadda talada hay u damacsan yahay inuu beeshaas uu maaragtay uu soo sharaxo mataqaana ra'iisul baarlamaan taasna waxay keenayaan mataqaana in iskoorimaad iyo waxaan loo baahneen iyo waxyaabo badan oo qalaasay sababi karta waa in dadkaas la heshiisiyaa xaqay leeyihiin loo kala qaadaa madaxweynaha waa inuu arrintaas sameeyaa arrinta inta hadda ay joogtaan uusan kasii fogeynin insha Allah haddaan anaga imaanana kursigaas ilaa idinkiis inaan meeshaas xal ka keenaa rajaynaa ilaa idinkiis waa gartay qaybihii dambe barnaamijkeena soo gaarnay ugu dambeyn markaad eegto sida ay wax u socdaan maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka waxa ka dhaxeeya halka dalka u socdaa dalka waxa waaye insha Allah doorasho aadaa inkastoo ay jiraan isfaham daro hadda laakiin waxaan u maleysaa inay isku soo dhawaanayaan qodobada ay isku hayaan waa la xalin karaa dawladda waa inay la qaadataa dadka maaragtay waxa saxa ay la qaadato waay saanaan rabaa see rabta ayada inay dadka ku socodsiisa ma aha wixii saxa inay dadka ku socodsiisaa loo baahan yahay maadaama heshiis lagu galo laba gobol in lagu qabto taas waa socon weyse waa in hal gobol laga dhigo mucaaradka taas ay ku qancaan arrimahan kale isku hayaan xal inay si degdeg ah aan u raadinaa labada dhinac ah hadday ii suurtagasho hadday ii suurtagelin idaacadahan la wadaagi doona insha Allah xalka Soomaaliyeed macquulka ah insha Allah maalmaha soo socda laba maalin ka bacdi aad u mahadsan yahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga Maandeeq oo qayb ka ah xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliya ahna murashax u taagan jagada madaxtinimada Soomaaliya Dr. Mahad Axmed Diiriye inta barnaamij noocan oo kale aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas nabadgelyo amaan Allah aad u mahadsantahay